Pleasure to see you. Yes, nice to see you. Thank you for both your service. And my wife Gwen. gurigan aan caawa ka afurayno waxaa la dhisay 1910kii waxaa lagu magacaabaa guriga ama rugta deegaanka ee gudoomiyaha gobolka muslimiinta Minnesota oo Soomaalidu u badan tahay ayaa jooga abaarihii 7:30 daqiiqo ayaa gudoomiyaha gobolka Tim Wallace iyo afadiisu soo joogsadeen iridka hore ee guriga waxayna dadka imanaya ku salaamayeen kelmadda ah salaam markii la wada yimi abaarihii 8 fiidnimo ayaa gudoomiyaha gobolka si guud u soo dhaweeyay dadkii wuxuuna ku yiri tan aan caawa gurigan ugu wada sugannahay waxay ku tusaysaa in dadka Minnesota hal yihiin Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim kadib abaarihii 8:25 daqiiqo baa markii ugu horeysay guriga gudoomiyaha gobolka Minnesota laga aadamay laguna tukaday salaadii maghrib Shariif Cabdisalaam Aadam oo kamid ah culimada Minnesota gaar ahaan masjidka Daalo Hijra ayaa tan caawa u arka guul ay muslimiintu gaareen sababtoo ah in gurigii madaxtooyada gobolka la joogo oo laga afuro oo laga aadaamo caawa waa arrin runtii taariikhda aad u weyn waxayna muujinaysaa muslimiintu inay heerkii la rabay ay gaareen waxaa inta badan waayadan la maqlaa wax loogu yeero islaam nacayb maanta taariikhdan siday u bedelaysaa ereygan baan ku iri Jeelani Xuseen madaxa hay'adda Keer horta runtii waa arrin taariikh weyn ah sababta waxa weeye markii ugu horeysay ay arrin sidan oo kale ka dhacday oo aqalkii ay governorku uu ku marti qaaday muslimiin inay maadaan waxayna tusaysaa inay muslimiintii ay yihiin ummad loo baahan yahay maanta in la taageero oo la soo dhaweeyo inta badan markay curato bisha Ramadaan madaxweynayaashii hore ee Mareykanku way hambalyeyn jireen muslimiinta curashada bisha Ramadaan 21 sano ee ugu dambeysay qaasatan madaxweyne Trump ma sameynta maantana gudoomiyaha gobolka Minnesota ayaa sidan sameeyay maxay tahay kala duwanaanshaha ayaan ku iri Xamse Warfa oo ah wasiir ku xigeenka shaqada iyo horumarinta dhaqaalaha Minnesota waxa calaamad muujinaysa kala fogaanshaha iyo meesha kala joogan gudoomiyaha gobolka Minnesota gurigiisa afar ugu sameynaya muslimiinta iyo madaxweynihii Mareykanka maanta maaragtay oo iska daa inuu marti galiye aan xataa u soo dirin hambaliyadii nacaybka iyo fogaanshaha dadka muslimiinta u qaba ayay madaxweynaha muujinaysaa gudoomiyuhuna soo dhaweynta iyo maaragtay danaynta u danaynaya dadka muslimiinta habay muujinaysaa waa maalin iyo habeen Shariif Cabdisalaam ayaa qaba in aan qayb ka nahay dadka Minnesota oo gudoomiyuhu uu yiri dadka Minnesota waa mid marka waxay arrintan muujinaysaa qayb horta inaynu gobolka ka mid nahay talabaadna xagga fariinta barasaabka ama gobernatooraha gobolka oo ah hal Minnesota inaan inaguna qayb ka nahay oo dadka muslimiinta ay marti ku ahaan ayuu kulankan muujinaya xildhibaan Hodan Xasan ayaan ku iri maxaan ku mudanay inaan gurigan rubac qarniga aan deganayn Minnesota aan soo gali weynay aan caawa ku wada afurno intan oo muslimiina wallahi sabab badan buu noo siiyay horteeda governorka markii uu ordayay Soomaalidu aad bay ula shaqeeyeen Soomaalida sanadka hadda la soo dhaafay aad baan u soo baxnay oon waxaan isticmaalnay awoodda codkeenu uu leeyahay teeda kale Soomaali badan oo waxa jira governorka aad ugu dhow oo saaxiib la ah marka wadankana awoodda kaliya haysto waa codkaaga ina codkaaga aad ku dagaalanto marka waxtani waxay ku tusaysaa abaabulkeen sabaabulay codkeeni aan soo dadkeeni aan soo bixinay codkeena aan isticmaalnay inay sharaf in iyo qadarin gooni ayna siisay in la soo dhaweeyo